gabadheedii gabar habareer ahayd oo si arxan darro ah loogu dilay magaalada Nairobi. kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal war kale farxad leh ayaan rabaa inaan halkaydin kula wadaago saaxiibayaal soo dhawaada ninkii Hashim Taksiile ahaa ee loogu baadi goobista badnaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Nairobi ninkii arxanka darnaa ee markaasi gowracay gabdhaheennii Soomaaliyeed ee markaasi saddex gabdhood si xun u dilay ayaa haatan ciidamada booliska gacantooda soo galay muuqaalkan aad arkaysaan waa ninkii Hashim ahaa si fiican ila arka ninkii Hashim ahaa oo haatan gacanta soo galay soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka iga like garee sida shay garee oo markaasi asxaabtaada la wadaag asxaabtaada jeclaa in Hashim mar un gacanta lagu soo dhigo u sii wadaag saaxiibayaal channelkan ku soo biiro subscribe isa waa masantahay ninkii Hashim ahaa oo isbedelay ninkii Hashim ahaa oo isbedelay ayaa haatan gacanta lagu soo dhigay Hashim Taksiile dilaagii arxanka darnaa waa kana ninkii in muddo isku qarinayay gudaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ninkii oo muddo isbedelayay isku qarinayay ee Nairobi dhexdeeda ilaa laamaha ammaanka san hore u soo tabiyeen dadka dhan oo maaragtay wariyaasha oo dhan on ana dhinacayga ka soo tabiyay laamaha amniga oo dhan meel kasta oo wadan kasta ay xaduud leeyihiin ayay xireen maasha Allah way dadaaleen ciidanka iyo dadweynaha intaba waayo ciidanka kaliis wax ma qaban karo haddaan dadweynuhu caawineynin dadweynahana aadan uga mahadcelinaynaa arrintaas oo in ay soo qabteen gacan ku dhiiglihii arxanka darnaay oo saddex qof xibnahoodii jarjaray waa lagu guuleystay waa la soo qabtay ciidamada waa kuwaas jirdilaayo oo hadda haayo marka bal aan isla dhageysano waxaana la yiri maadaama uu isku qarinayo magaalada garka uu iska soo xiiray uu isbedelay oo waayo intaas yaan lagu garan ayuu leeyahay laakiin dhagar qabe ma dhuuma karo wallahi dhagar qabe ma dhuuma karo maanta ahayn booso waa la soo qaban maalinteena qataba waa la soo qabanay in la soo qabana waa la ogaay aakhire la soo qabay ayaa haatan gacanta dawladda soo galay ninkii dilaaga ahaa ee arxanka good ilaaga ciidamada booliska way ku maasan yihiin iyo weliba laanta dambe baarista DCI-da oo markaasi arrintaasi sida weyn uga shaqeeyay way ku maasan yihiin boqolkiiba boqol Hashim Taksiile ayaa iska xiray garka tintii ayuu iska jaray wajigiisa uu bedelay si aan loo garan balse laanta dambe baarista dalkan Kenya ama laanta sirdoonka sinaba uga baxsan gacanta ayaa lagu soo dhigay ninkii Hashim ahaa ila arka sawirkiisa warkan Hashim Taksiile oo ugu dambeyn hadda aan kula hadlayo soo galay gacanta booliska gacanta ciidamada booliska haatan ayay marka kiiskii bilaabanaysaa dadkii ay idinkaga digi jiray oo ay idin lahaa Hashim Taksiile wuxuu soo bandhigi doonaa dadkii soo qorsheeyay dilkan ayuu haatan banaanka keeni doonaa dad badan ayaa haatan fadhi uusan u yahay dad badan ayaa haatan walwalaay Hashim wuxuu fashili doonaa dadkii soo agaasimay qaabkuu u dilay qorshaha siduu ku yimid bilowgii qorshaha qofka haatan soo agaasimay iyo arrimahaasi oo dhan ayuu haatan Hashim lagu wadaa inuu banaanka keeno maadaama haatan gacanta lagu dhigay waxaad isweydiinaysaa Hashim halkee laga qabtay sidee loo qabtay qaab noocee loo maray yaa ka shaqeeyay waxaan idin soo fasaxayaa mid ka mid ah saaxiibadeyda oo haatan iga warrami doona halkaasi oo markaasi qodobkaasi iyo sida loo soo qabtay iyo sida ciidamada booliska u soo tashay aynu hal mar isla daawano kadibna isku soo laaban doona wuxuu ii sheegay in gacanta lagu soo dhigay ninkii dilay gabdhihii Soomaaliyeed marka ma fahmin wuxuu ii sheegay balse waxaan u maleeyay kii xalay ahaa inuu iga warramay umaleynayay kadib wuxuu yidhi kaas ma ahan iyo ninkii Hashim ahaa ee la soo qabtay marka Hashim wuxuu ii sheegay in laga soo qabtay meel yiraahdo istareehe waxaa lahay wuxuu isku dayay inuu wajigiisa bedelo garkii uu iska xiray wuu is yareeyay waxaa la guri yar ayuu ku jiray markii ninka uu ii sheegay waxaan leeyahay aniga ma aaminayo waxaan u baahanahay inaad isoo dirto sawirkiisa oo degdeg ah markii uu booliiska kala wacay sawirkiisa asagoo joogo police stationka ayaa lii soo diray ninkan waxaa lagu qabtay police stationka la yiraahdo Kamkunji police station kadib markii la qabtay oo meeshii la geeyay oo warka laga qoray kadib gaari ayaa la keenay
gaariga waa lagu qaaday waxaana la geeyey meesha la yidhaahdo saa la socotiinba meel kasta oo maxaa la dhahaa control amba laga baxo amba wadanka magaalo kale ha la aado oo isla wadanka dhexdiisa amba wadamo kale ha loo baxo waxaa la dhigaa sawirada qofka dambiilaha iyo baasboorkiisa iyo wejigiisa wax walba laga hormariyey saa darteed meesha lagu qabtay waad ujeedaan meesha ayaa lagu qabtay wala dhiigya cabow adaa sheegi doona ummadda kugu koley waxaan asi kaliya sooma agaasimin DCI waa waaxda dabibaarista waddanka Kenya ninkaasi uu isku qabay meel ay Soomaalida degeen meel waxaan sheegayaa inuu ka cabsi qabay Soomaalida hadduu isla imaado hadduu Bangani aado hadduu aado Sauti mise uu aado gobolka waqooyi bari hatta Soomaaliya hadduu aado Ethiopia aado ninka wala soo qaban lahaa Soomaalida aad iyo aad ay isku yaqaanaan wadada isku dhashay waaye wadada walaalo ah marka wuxuu reesaday meel ay Soomaalida ka fog tahay sidoo kale uu aadi waayay meelaha kale waddanka Kenya uu aadi waayay maadaama sharcigiisa ma wata marka sharciga hadda Kenya kulli wax ku jira laakiin traffic marka wuxuu reesaday meel koona ah oo mugdi ah buu reesaday kadib day waa ogtahay xaafadda Isliim maanta farxad ay ka muuqataa shacabka aad u farxi doonaan ninkan hadii waa ogtahay gabar yar oo Soomaaliyeed hatta hal ma ahan laba ma saddex ayuu dilay marka waxaan ogtahay shacabka Soomaaliyeed banaanbixi ay sameeyeen maalimihii hore soo dhaafay aad ma aad mid ka daray sameey doonaan oo dabaaldeg waa war farxad leh oo in haatan Haashim gacanta lagu soo dhigo waa warkii ugu cuslaa oo ay Soomaalidu sugaysay sida weyn waliba ay sugaysay gaar ahaan bulshada ku dhaqan Nairobi xaafadda Isliim si weyn ayaa loo wada sugay balse ugu dambeyn ninkii Haashim haatan gacanta ayaa lagu hayaa waxa uu mari doonaa halkii uu narsiyey saddexdii gabdhood ee walaalaheen ahaa oo haatan naga hooseeya haatan naga mudan duco oo keliya gacan ku dhiigleyda arxanka darnaa waa kan ugu dambeyn waa iskeen in badan aynu sugayna Soomaa wallaahi bilaa horta si kastoo loo dilo ninkaas amba loo mariyo waa un laga nasanaa qalbigii uu nasanaa dadka ilaa dadka way dhinteen sooma noqonayaan dadkayni way dhinteen oo saddexda gabdhood way dhinteen sooma noqonayaan laakiin xanuunko dad gaarsiiyey si kasta haddii cadcad loogu jar ninkaas si kasta haddii loo maaragtay loogu sameeyo ma saddex qof ayuu dilay ma u dhigmaa wallaahi ma u dhigmo الله عيلبا ما أدرك مسدح قفود دلي لكن الحمد لله هرتدي waxbay ka daran yihiin nafta inta dhiila ninkii dadkaas jarjaray ee magaalada Geesbagees hilibkooda u qaybiyay oo gacmaha ka jarjaray oo lugaha ka jarjaray oo ayaga dhan ximximig u gogooyay awli nool intay dadkii ehelkii iyo qaraabada iyo Soomaalida oo dhan intay niyadu ku hayslaayeen meeshan waa meel bahal galeen oo dadku hadii la isku dilo dib loo ma arkay inta la dhihi lahay horta alxamdulillah waxaa farxad in la soo qaban karo qofka qof dil geysto ninkan waan arkay oo dad asna dilay gabar yar dilay asna waan arkay hada xaaladu ma fiicno oo buris u wato oo gabadhi cabaadayso asigana maaragtay waan idin soo geli doona hadaan maaragtay xogtiisa dhameystiran aan helo waan raadinaa xogtiisa laakiin hada waxaa farxad oo farxad inaan maaragtay ilaahay ka baryayna in Haashim tagsila la helo waxa ka si farxad badnaa doonto dadkii ku daba jiray ku lug lahaay ilaa ninkan kaliya dadka inta iska soo qabto iska ma qalqalin waxa loo qalqalay dadkan ujeedada ma saawatay ma dadka kulley dad kale ka dambeeyay dadkii kalena cawada nolol ayagan uma taalo intii dambiile horan ilaahay dambigooda ceebtooda iyo dambigooda cirbriqaha ka dhigo oo hala soo qabto oo meel walba maaragtay ay ku dhuuntaanba iga kac waxa ta dambiile iga kac waxa ta dhiigi muxuu ahay dhiigi cabe ilaahu la dhahaa marka hadda aan sii dhageysano wax yar laakiin waa farxad in la soo qabtay ummadii sas u jarjartay dadka soo waa tahay daawadayaal xogii ugu dambeeyay arrintan isa soo taraya qaabka loo qabtay iyo halka laga qabtay aan idin soo wadaagi doonaa muuqaalada soo socda idinkula wadaagi doonaa saaxiibayaal muuqaalkan ma iga la garaasiina sheegay oo markaas asxaabtaada gaarsiya ninkii Haashim ahaa oo la qabtay ku dhaha u sii sheegay ninkii Haashim ahaa oo la qabtay
haashim tagsiile dad badan ayaa la shaqeeyey dad koox ayaa la shaqeeyey kooxahaasi ayaa marka haatan lagu wadaa in banaanka la keeno mar haashim gacanta lagu dhigay kooxahaasina banaanka ay imaan doonaan dad qalatada ahaa ee ka ganacsan jiray xubnaha biniaadanka banaanka ay imaan doonaan saacadaha soo socda weliba uu kashifi doonaa iyo weliba wuxuu rabaa inuu kashifo sir aad u culus waxaa isku haystay haashim ma aha qofka dilay intaasuu qaatay soomeen gabadhii lacagta qaatay way taala oo madax furashada ah gabadhii dhiig jirtay awe madax furasho ayaa laga qaatay sidaas ayaa lagu soo fasaxay isaga ayaa caddeyn doona waxaa lagu xamin jiray gabar kale oo laga qabo oo markaasi degan dalka maraykanka ayaa dishay oo shaqooshay isaga ayaa caddeyn doona ma iyada ayaa lacag ka siisay haddii ay fara soo gashana waa kaasaa laga soo qortay cid walbo sharciga haatan sharciga ayaa guurisay haashim tagsiilana waxaa soo qabtay ugu dambeyn warkaan farxadda leh saxaabtaada la wadaag halkaas ayaan kusoo koobayaa warkii idinla wadaagaya wixii kale ee xoogaa ka soo baxana halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa saaxiibyaal waa mahadsan saad arkaysiinba hadda insha allah kule wixii kaloo soo maaragtay kasoo cusboonaado ana waa idinla soo socodsii doonaa inta ana aan ka arko insha allah marka aad iyo aad ayaa umahadsantihiin waxaa farxad leh in uun lasoo qabtay ka dambana hadalku waa sii waweynaan doonaa faahfaahintu way sii badan doontaa wixii dilkan ka dambeeyana way soo bixi doonaan insha allah laakiin soomaalida islii ku nool iyo soomaalida nairobi ku nool iyo guud ahaan kenyaba is ilaaliya oo iska ilaaliya dadka maaragtay aad wax xoogahayna iyo afaariina intaad u sheegtaan idin dilaayo maaragtay idin ugaarsanayo ilaahayna ha idinka ilaaliyo waxaan idin leeyahay videoga like iyo subscribe badan ha lay saaro insha allah ha laysu sheer gareeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu